hadda Somaliland waxaa ku nool qoomiyad Oromada oo lagu qiyaasay in ka badan 100,000 oo qoys kana shaqeysta xirfadaha kala duwan. Arrintan colaadani ayaa sababtay in qoysaskaasi kumanaanka kun ah ay noloshooda saameyn weyn ku yeelato. waxaanay sheegeen inay dhibaato weyn ay soo food saartay tan iyo intii dagaalku dhex maray Soomaalida iyo Oromada. sida uu ii sheegay Xamse oo isagu kamid ah dhalinyarta Oromada isla markaasina ku nool magaalada Hargeysa. Yoomiyan ka shaqeysta weyn helay oo ka shaqeysta goodadka ku qoraya bulaada ku qoraya oo ka shaqeysta. hay marka intii aanad rabshadana dhaceen ka hor sidee kala dhaqmi jiray Somaliland? Hadda ku war ma jiro dib ma jiro waan iska shaqeynaa idna yaaleysan ma jirin dagaalka dabadeed nagu bilaabeen laakiin ida waageystana anagu ma ogin waa sideen waa wada joognaa kan ba wada joognaa maadaama anagu waa ogin in anagana masaakinta nagu bilaabay ma anagu waan ka osnay dadka masaakinta nagu dhaajireen dadka kale ee waageystay intaan kala hubsan ee ku bilaabeen anagu ilmo yar baan irsanaa meeshaan ku dhagaagayna ma jirto ma shaqaysan karnaa imika inta dagaalka la bilaabay guriga ma furin maanta soo furnaa waa ma karsan ba imika reerka jaarka bariska loo dhigay leegeer aanu doonay waan ku horsanayaa ma inay waddankaygu eliyaanagaa ku dhito haddii kalena ilmageelada. hooyo xukun Maxamed waa hooyo kamid ah qoomiyadda waxaanay codsanaysaa in dhibaatada la joojiyo. waxa weeyaan Hargeysa 4 sanadood baan joogay anagu Soomaalida dad walaalaanahay in dhibaatadana laga qabto oo Oromadana edad samayso oo dadka oo nabad wada keento ma aragtay oo biyaan hel wada cunno walaalnimadeena ku wada joogno iyaan doonayna walaashay maanta dhibaato weyn baan gaadhay kowdhe hana laga qabto anaguna edab ha sameeyaan Oromadu in waliba ma aragtay inaan nabad doonayna nabadgelyadaan doonayna maanta walaal. bulshada sidaas ku dhex gasheen ma jiraan dad Oromo iyo dad Somaliland ka soo jeeda ama Soomaalida oo iskuursada ma jiraan? way jiraan bulshada Oromada nabad baan doonayna oo anagu waxaan beelna ma jiro idinkaaban hoostiina joogno oo bariiskiinaan cunayna oo waxaan qoyni hadda maanta qarafaysana wax walba waa nasiinaysi nabad baan doonayna. وهذا شقوينك أتقبطان أما أتقبطان قدها مقالة هرقيسة Somaliland waxaan dhex joognay kaygi yar areesuha wawde anaguna darba meeda oo koloon masaxada helana $50 ku hela iyo $5 ku hela waan soo meeda dharkana sida baa reerka u bila umashii imika way qadantahay aqalkay dhex joogta oo sidaan qudrada ugu doonaan gariwe kaadida sidaan ula baxnaan gariwe kolka caruurta hadaan nabad helo waan fiicana ido anagu maanta ninka rabshada kaciyay ilaahay balaaya gurdo waxaan doonaynaa anagu nabad baan doonaynaa nabad weyn yaan doon la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah baa wadaleena inay nadaayaan anaguna magan baan u nahay iyaguna magantii xagga joogta waa inay daayaan. Maxamed Ibrahim Ciise waxa uu sheegay in uu muddo 17 sanadood ah uu si nabadgelyo ah uga shaqeysanayo gudaha Somaliland. Hargeysa 17 sanadood baan joogay 17 sanadood Somaliland sidii walaalaan wada shaqeysanayna wala dhibna waxbana ma arkin arintan foolasho maantiido waday ka soo dhaaday waa ka hunnahay hor taaganahay wili oo u sheegaynaa dadkeenii waday joogo in Somaliland walaalaan noqono ganacsiga waa walba sidaa wada shaqeysanayaan 17 sanadood waxaan arkin baan imika arkay marka aniga waan oran laa dadkeenii Oromadu waday dheer joogta in Somaliland la ilaaliyo maanta Hargeysa arinta halkaas u dhaaday darteedii halkan inagana naf baan u imaade diirka disheedii iga soo dhacay marka walaaladiga dadkeena lee kaaleedina ku gorayna yeedii soo dhacay marka waa soo dhacay qolo guri dhisayso washmaanka habeenka ilaalinaysa 7 qof ay soo dhacay kale iyo maanta guriga kama soo bayn qudaarna kama soo doonay marka imika dibno haysta darta halkaas dhaaday darteedii halkan sidan maartay gurigana kama bay karo Somaliland dina maarto in nabad noo ilaaliso sidii hore wada joogno. Xasan Macalin Aadan oo isaguna kamid ah qoomiyadda Oromada isla markaasina aan ku wareystay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu dhankiisa sharaxaya dadkani shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada Hargeysa waa qoomiyadda Oromada. shaqooyinkoodu waxay u badan yihiin qaybta dhismaha oo waliba qaybta nadaafada waliba dhismaha oo qaybta kaabadaha iyo suuliga iyo bulaacada shaqadii qaybta habluhu iyo dumarkuna waxay ka shaqeeyaan maxay ahayd nadaafada.